Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladaha Hoose iyo dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ayaa maanta magaalada Baraawe ku qabatay kulanka la tashiga odayaasha dhaqanka kuna saabsanaa dhigaalka qorshaha horumarinta degmada Baraawe kaas oo usbuucyo ka hor uu ka daahfuray degmada. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladaha Hoose iyo dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed. Kulankan maanta la tashiga odayaasha dhaqanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada Baraawe, howlwadeenada Wasaaradda Arrimaha Gudaha Koonfur Galbeed. Ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Cabdullaahi Maxamed iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cabdi Yuusuf. marka labaad waxaan u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo runtii seminaarkan soo qaban qaabisay kuna dadaashay si degmadan iyo dadkeeda ay baahida degmadan buug uga samayso loona helo baahida dhabta oo ka jirta waxa ay u baahan tahay degmadan. wasaaradda arrimaha gudaha aad uga mahad celinaya sida sharafta loo qiimaha leh ay u garteen runtii waana xilli loo baahnay runtii degmadana ay baahiyo badan ka jiraan. inta kadib waxaan rabaa in mowduucayga horta u gudbo xaqiiqiyan horta degmada Baraawe maanta la iskuma hayo baahi waa ka jirta istaabyo kala duwan ay ku jirta. waxaan rabaa horta number 1 horta aeroboortka degmada Baraawe in ugu hormaro wasaaradda arrimaha gudaha. number 1 horta degmada Baraawe aeroboorkeeda waa indhihii laga soo galayay muddo ilaa 5 sano 6 sano uu hirgelsan yahay. haddana dhibaato badan laga sheegtay oo ah xilliga roobaadka in uusan diyaarad ku soo degi karin ilaa uu qalalo. waa solar markii qorraxi jirto aeroboorku shaqeeyo markii roob jirana uu xirmo. arrintaas dhibaato badan ay ku haysaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda Koonfur Galbeed. waxaan rabaa inay horta arrintaas ay si dhab ah horta ogaato daraasaad dhabana ku samayso wax allaala wixii laga qaban karo iyo macluumaadka laga qori karo horta si dhab loo fiirsho si aeroboorkaas xal waara looga gaaro. aeroboorku waa samaysan yahay waa dhisan yahay waa shaqeynaa laakiin xilli roobaadku waa xirma waana baahi ka jirta iyo culays ka jira. number 1 number 2 degmada Baraawe jida laga hirgeliyay oo aeroboor ka soo bilowday waana fal dhiman dhismihiisina waa socdaa. dowladda Koonfur Galbeedna dadaal badan ay gelisay fikir badan ay gelisay shaqo badan ay gelisay juhdi badan ay gelisay dadaalna way lagu sameeyay ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan iyo ka madaxweyne ahaan Koonfur Galbeed annaga u qaabilsan degmada Baraawe ka maamul ahaan ilaahay idankiisa waxaan rabnaa bulshada Baraawe inaan u sheegno inaan jidkaas iyo kontroolkiisa iyo waxa dhibka ku ah bulshada iyo wixii magaalada dhibka ku ah inaan kontrool ku sameynayno haddii ilaahay ma kana shaqeynayno sida u hirgeli lahaay. waxaan kulli maanta iskugu nimid barnaamijkan oo maalin dhoweed halkan aan ka daahfurnay oo ay soo qaban qaabiday wasaaradda arrimaha gudaha oo ah horumarinta buugga horumarinta caasimadda dowladda Koonfur Galbeed ee Baraawe. wasaaraddu aad bay ugu mahadsan tahay iyo hogaamiyaha dowladda Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdicasiis oo runtii kaalin weyn ku lahaa soo aadista halkan ay wasaaraddu soo aaday iyo in buuggan la qoroba sabab weyn u ah. runtii wixii waa la sheegay odayaasha sheegay oo waxa sheegay raggii kale oo iga horeeyay. magaaladan kulli waxaan dadku wada og yihiin magaalo 4 qodob ayuu dhaqaalahooda ku koobnaa 4 mayl beeraha xoolaha badda iyo ganacsiga. waxaan isleeyahay hadda ganacsiga un baa xoogaa ka dambeeyaan oo wax saasa ma jiraan intii kale way ku liidataa maxaa yeelay xoolihii inta badan waxaa batay abaaraha batay wax kulaylka batay xoolihii waa iska soo yararaadeen. magaaladan barakacyaal ma joogi jirin mana laga aqoonin hadda barakacyaal ayaa soo degay. dadkaas barakacyaasha waxay u badan yihiin dadkii xoolaha ka soo dhamaaday dadkii beeraha qabadaha kala duwan ay ka soo qabsadeen xagga roob la'aanta. webiga meesha mari jiray sablaala anoo dhawaanay webiga mari jiray ilaa intagi jiray ilaa iyo Baraawe meesha ku ag tahay Baraawe waxaa hoos yimaada ilaa 200 tuulo
ku dhawaad iyo deegaano iskugu jira inahaasoo dhan waxaa loogu noolaa qaybna beeraha loogu noolaa qaybna waxaa loogu noolaa xoolaha gudaha markii la soo galana waxaa lagu noolaa ganacsiga iyo badda marka waxaan insha allahu tacaala dardaarmaynaa haddii ilaah yidhaahdo ama aan ku bogaadinaynaa tiimka hawshaan shaqada ku leh in ay xoogga saaraan afartaa qodob iyo wax allaal wixii laga qaban karana ay ka qabtaan horumarinta baddoo la horumariyo malaaygo markii la soo qabto oo qalabka lagu soo qaban lahaa la helo markii la soo qabto haddana la helo meel lagu xanaaneeyo ilaa uu ka gaaro meeshii loo baahnaa ama lagu iibi lahaa uu ka gaaro beeraha oo kale wixii laga qaban karan lahaa in la qabto haddii ceelal la qodayo iyo haddii kaleba la horumariyo waxyaabaha beeraha lagu horumariyo hadday qalab tahay iyo hadday biyo tahayba hadday xoolaha yihiin dadkii xoololeyda xoolaha dhaqaaley jiray ee hadda bannaanka magaalada yaalla in haddii xoolahooda dee dib loogu celi karo lagu celiyo ganacsiguna dee waxa weeyaan wuxuu kaga jiray kaalinta koowaad oo kaga jiray dhaqaalaha deegaankan asagana in la horumariyo wax allaal wuxuu ku horumari karo intay ahaataba la sameeyo haddii ilaah yidhaahdo maxamed qadar warsan raadiyow shabeellaha hoose